isbitaalladenan Soomaaliya ka mid ah ayaa wiil yar baa xiliintii baa wareegatay way dhimatay marka xiliintii baa laga saaray marka dhakhtar loo kala ka saaray wuuna badbaadiyay qofka ugu dhakhtarkaasi amaan buu mudan yahay haddii aan xiliinta laga saaray cunug waa dhiman lahaa marka waxa dhacday wuxuu aaday Hindiyu aaday wase iyagu noo sheegayaan dhakhtarkii Hindiyu wuxuu yiri xiliin fiican baa la saaray dhakhtarkiina uu khaldamay marka su'aasha isweydiinta ma waan aniga urologist ana see ku ogaan kartaa xiliinta inay dhimatay ma ogaan karaba see uu u sheegi karaa ninkaan khaldan ma dhihi karo laakiin wuxuu rabaa in uu ceebeeyo dhakhaatiirtii wadanka kii marka reerku waa soo laabana wax la Hindiyan aadayo xiliin khaldan baa waagi wiilka laga saaray xiliintii miya batol miya lagu qaaday baco miya la geeyay meeshii laba geyn marka waxa jira iyagu weyna fahmeen hadda masaaridu hadda weyna fahmeen aniga team badan baa hadda ila soo xiriira waxaa jira meelo badan oo dhakhaatiirtu ay ku jiraan oo patient noocaas aan loo keenay kan baa loo keenay waxyaabo la yaab kale waxa kamid ah qofka Soomaaliga wuxuu leeyahay waxaas bay waxa ma qabtid baa leeyahay patient baa aniga igu yiri isbitaal baan tagay waa la ibaaray waxa lagu yiri waxa ma qabtid markaas aan goro okay waan ku baarayna dib ma lahan markii aan baarnaa waxaan ka helnay xanuun markaas wuxuu yiri aniga markaas waxaan ku yiri inta aan ku sheegin waxaan ka helay horta baaritaanka kale ii keen qof walba aniga yimaad waxaan dhahay baaritaan lagu sameeyaa ii keen baaritaan kale baaritaanka kale marka la ii keenayna exactly waxaan ka helnaa laga helay isagoo laakiin muxuu dhahayay waxa ma laga helay marka waxaan isleeyahay ajaanibtaana waxay sameynayaan subcadil oo dadkana lagu ciyaaraya anaguna dad feejigan ma nihin